السلام عليكم وولالكن عبد المجيد maanta mawduucana waxaynu kaga hadli doonaa dalka koobaad ee adduunka ugu dadka badan kuna jira kaalmaha koobaad ee dhaqaalaha adduunka dalkaas oo lagu magacaabo Jamhuuriyadda Shacbiga ee Shiinaha ku soo dhawow waddanka Shiinuhu waxa uu dhacaa koonfur bari Aasiya waxaana lagu magacaabaa caasimadiisa Beijing luqadda ay ku hadlaan dadka badankoodu waa Mandarin waxaana la aasaasay oo lagu dhawaaqay jamhuuriyadda lagu magacaabo dalka Shiinaha sanadkii 1949 waxa laga isticmaalaa lacag lagu magacaabo yuan dalka Shiinaha waa midka ugu weyn bariga Afrika waxa uu ku jira kaalinta afraad ee wadamada ugu badka weyn caalamka waxa uu badkiisu gaarayaa 9 milyan oo kiiloomitir square ama laba jibaaran waddanka Shiinuhu waxa uu kaalinta koobaad ku jira dadka ugu badan adduunka kaas oo lagu qiyaasay in dadkiisu gaarayaan 1 bilyan dhibic 42 milyan oo qof waana tiro lagu qiyaasay inay ka badan tahay dadka ku dhaqan qaaradda Afrika waxa jira diimo aad u tiro badan balse diinta ay dadka Shiinuhu badankooda caabudaan waa diinta loo yaqaano Confucianism-ka waxaana soo raaca diimo kale oo kala ah diinta Islaamka, Buddhism-ka iyo Kirishtaanka dadka ku dhaqan waddanka Shiinuhu waxay sanad kasta u dabaaldegaan xuska guusha kacaanka shuuciga ah taas oo ah markii ugu horeysay ee waddanka loo magacaabay in ay noqoto Jamhuuriyadda China waxyaabaha uu dalkani ku soo kordhiyay taariikh ahaan adduunka waxa ka mid ah lacagta warqadda ah baaruudda jiheeyaha iyo waxyaabo kale oo aan barnaamijkan inoo suurtagelin inaynu ku xusno waddanka China waxa uu ku jira waddanka afraad ee ay dadka ugu badan adduunka u soo dalxiis tagaan waxaana lagu qiyaasaa tirada sanad walba u soo dalxiis tagta dad lagu qiyaaso 50.9 milyan oo dalxiis ah meelaha ugu horeeya ee ay dadku u dalxiis tagaan waxa ka mid ah derbiga weyn ee Shiinaha kaas oo la dhisay muddo lagu qiyaaso 2000 oo sano ka hor derbigaas oo dhererkiisu yahay 2400 kiiloomitir derbigan oo sii maraya buuro iyo wabiyaal aad u tiro badan dhibaatooyinka waaweyn ee dalkan haysta waxa ka mid ah wasakhowga hawada dhibaatadaas oo ay sababeen warshadaha tirada badan ee ku yaala dalkan ugu dambeyntii waxa xusid mudan in waddankan uu leeyahay waxyaalo aad u fara badan oo uu kaga duwan yahay dalalka caalamka hadaynu qodob ka mid ah ka soo qaadano waxa ka mid ah in qoys walba uu laba caruur wax ka badan aanu dhali karin qoyskii wax ka badan dhalana ay xukuumadda tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadayso taas oo sababtay in ay sanad walba ay gaadhaan tirada ilmaha la iska soo tuuro ama ay ku dhimato 13 milyan tiradaas oo u dhiganta in maalin walba ay dhintaan ama la iska soo tuuro 350 ilmood mawduucana maanta intaas ku eegyahay intaan ku kulmayno muuqaalka xiga waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo salaamaad